السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل وهي فذا برودكشن مقعي هو عبد الرحمن عبد الله علي وكم مقع عليه الهنري وحنا نقول شيء مقالة مقدشو حاليا تاريخ دي سبورتي وحي اللي كورمو أنا وحنا نكبر بار مقالة قالكعيو حافظ فلوتشو halkaasoo goromada xaafada aan kubadda cagta ka bilaabay waan soo dheelay koox la yiraahdo FC Flucho xaafadaha kale magaalada Gaalkacyo koox badan oo soo dheelay baa jira garsoor koox ka tirsan FC Barcelona la dhaho iyo FC Flambo ragii maaragtay kubadda cagta aan la soo dheelay oo legend Gaalkacyo ka ana waxa kamid ah Maxamed Caawil Xayir Coon أحمد جامع حرارة أحمد إبراف ونحافظ فلوجه وقت في عن كسو ودقانا يدن يرب بدن وماركتي آدي وقالية لكن وقت جنو مساوي حوالينا مقعد الله شيء السلام عليكم ولا الآن بقوم عشان تاي هدن كاجت شوابو سيدان سير عادة وبيري على بانو وحن كمل هادي فايدة وفي عن كسو بعي حافظ فلوجه لأن يرب بدن أو حاجة ده حافظ فلوجه كسو بحده أو إيكهوريسي قرما دك بتاعك سير عادة قار كم ده لأن يراد زيا يود ديري جلسي إنهم كوبيرو koox kamid ah kooxaha gobolka Mudug oo lagu magacaabay Yimayska haddaan warbixin yar oo kooban idin ka siiyaan ugu soo biiro kooxda qarniga FC Comset sanadkii ugu horeeyay waxaan u safanayay kooxda Yimayska sanadkii labaad waxaan ku soo biiray kooxda FC Comset waxaana ugu dhiirigeliyay macallin Ilyas Cabdinuur naxariista ee Allah siiyay oo markaa gacanta ku hayay da'yarta kubadda cagta ee gobolka Mudug haddaan idin kaga warramo booskan ka ciyaar jiray kooxda wuxuu ahaa daafac dhanka midig ah su-aashii weydiisay waxay kooxda boos joogtaa ma ka haysatay waxaan kooxda boos joogtaa kama haysan sababtoo waxaan ahaa markaa nin da'yar waxaa kooxda iga soo reeyay daafacyo badan oo legend ka gobolka Mudug oo qaar koobkii gobolada soo saftay sanadkii ugu horeeyay kooxda boos joogtaa kama haysan laakiin sanadkii labaad kooxda waxaan ka haystay boos joogtaa waxaan ka ahaa ciyaartoydii ugu fiicneed markaaga jawaab su-aashii ahayd wax koob ma la qaaday kooxda Comset ha waa la qaaday kooxda Comset waxaan la qaaday hal horyaal waxaan kaloo la qaaday munaasabadooyin lagu xuso taariikhda Soomaaliya oo dhowr koob ah waxaanan la gaaray guulo badan kooxda Comset iyo safarro badan kaaga jawaabo kuma ahaa wariyahanku uu adkaa ee ku soo wajahayta kubadda cagta ciyaaraysay wariyahana badan baa jira kuwa waxa jira aan isku koox joognay markii dambana laba kooxood aan kala noqonay iyo kuwa aan laba kooxood kala joognay wariyahanada igu adkaa ee kubadda isoo mara oo maaragtay aan hujuumi jiray oo aan kubadoodu aad u fiicneed waxaa kamid ahaa Allah u naxariisto Axmed Kayse waxaa kamid ahaa Abras oo markii hore isku waxaan hayn markii dambana laba kooxood aan kala noqonay hadan kaaga jawaabo kooxdeeba ahayd kooxdii kuwa adkay kubad soo hortimaadaan kooxda Comset kooxa badan oo waxaa jira maaragtay ay had bol wada dheeli jireen kubad adag kooxda Yimayska kamid ah laakiin kulankii ugu adkaa waxay oo aan u joogay kulan la dheelay kooxda Galcom markaas ay ciyaartoy ka tirsan kooxda Comset ay kooxda ka tageen oo isoo sabteen kooxda Galcom oo kulanka wuxuu ahaa kulan adag waa dareemi karaysaa ciyaartoy kamid ahaa xidigii kooxda oo ka soo horjeestay fiiran dheer iyo kubad adag bal la dheelaysaa marka kulankii ugu adkaa kulankaas oo ahaa teamkayga halkan uu hadla 12 ciyaarto waxaan macallin uga dhigi lahaa macallin Ilyas Cabdinuur naxariista ee Allah siiyo Portieri Jelani labada difaaca centrumka Aadan Daymre Fahad Muuse Challe labada baal Aweysow nin la dhaho oo Yimayska u ciyaari jiray iyo Caana Geel oo isna Yimayska u ciyaari jiray dhexda markaan u maado Cali Yare Ibrahim Khalaf labada baal Coon Axmed Ibraf labada weerarka Brunte Abshir Maxamed Ruura asagana naxariistii janna ee Allah siiyo waxaa jira ciyaartooy badan oo maaragtay dream teamkayga ah suurtagali karin inaan dhamaantood halkan ka wada sheego oo aad maaragtay kubadooda u fiican tahay ayagana waxaan leeyahay iga raali ahaada sida ila ahayd Awala Stadium meel fiican buu maray maanta waa loo kacay hiliyahooba loo guday waxaan aad uga mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay garoonka asagoo dhagax ah baan ku soo dheeli jiray kubadda cagta oo maaragtay bayrka kabaha aad soo gadatid adag maaragtay laba asbuuc aan hayno ka kala go'ayaan naftaadu wax u geysanaysaa dad dhul ku dhacday maanta waa roog injineeradii baa yimid waan soo dhaweynaa injineerada maamulka aad bay u mahadsan intii ka qayb qaadatay waxaan halkan dardaaran yar uga bixinayaa dhalinyarada gobolka Mudug magaalada Gaalkacyo iyo maamulkaba garoonka hal la ilaasho hala dhaqaalaysta garoonka waxaan rajaynayaa Gaalkacyo inaysan ku koobnaan garoonkan oo kaliya cawaalo oo kaliya lagu koobnaan ay soo badan doonaan garoomada rooga ah ee
waaweyn oo kubadda cagtu ay leedahay gobolka mudug aad baan u mahadsantihiin waxaan leeyahay horumar wanaagsan guul nabad iyo barwaaqan u rajeynayaa magaalada gaalkacyo gobolka